تهادوا تحابوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لكن عبد العزيز كسر هذا القناة كنا صدانك مشاريع ضمانته iyo مشروع عصب. maanta mashruuceenu fudud yahay, mashruuc yar weeye, qofka raas maal yar haysta bilaabi karaa. waxa weeye mashruuceena waa dukaanka ama maxalka اكسسواراتka ama hadaayaha, يعني دكان متخصص ببيع الهدايا، هدايا lagu gado. waayo hadiyada waxay macno u tahay maxaba, sacaada. qof markaad hadiyad siisid waxa cadeynaysa inaad qofka maaragtay oo qiimo weyn oo agtaada ka joogo. kaliya hadiyadaha isma siiyaan dadka isjecel kaliya. mumkin arday iyo macalinkiis in hadiyado la siiyaan, mumkin wiil iyo aabihiis, wiil iyo hooyadiis oo kale lamid gabdho siiyaan hadiyado. adiga saaxiibkaaga u keentid hadiyad bimunaasabad muayana in la dalacay ama mansib fiican qabtay. marka dukaanka hadiyadaha wuxuu noqon doonaa yani wax business ka helisid oo lacag soo gelinaya dakhil, iyo mujtamacii waxaad baraysaa tahaadu taxaabu. طيب maxaan laga baahanayaa mashruucan? awal shay waxaan fiirinaynaa mowqickiisa iyo meesha booska laga furayo. ثاني شيء waxaan fiirinaynaa qalabeyntiisa iyo see meesha loo hadiyo koorka loo sameeyo. ثالث شيء waxaan fiirinaynaa halkee laga keenaa hadiyadaha. طبعا hadiyado diyaar ah jira oo jaahisa iyo hadiyado adiga aad isku aadinaysid, taasna waan ka hadli doonaa. iyo waxaan ka hadlaynaa imsa shaqaale u baahan tahay mashruucaas, iyo waxaan ka hadlaynaa suuq geynta taswiiqa mashruuca. leen waad ogtihiin mashruuc kasta wuxuu leeyahay taswiiq gaar u ah. iyo waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha ka dhiga mashruuca inuu noqdo mashruuc naajix ah. طيب بداية haddii aan ka hadalno mashruucka meesha dukaanka iyo mowqickiisa, طبعا mowqickiisa waa inuu noqdaa meel population fara badan aad ka helisid. waa suuqa dhexdiis طبعا oo dadka oo dhan isku yimaadaan bulshada. طبعا dukaanka decorationkiisa ama qaabka loo sameeyay waxaad sameeyay sida qaabka maktabadaha oo kale, rufuuf baad sameynaysaa. طبعا واجهadiis waxay ka dhigaysaa waajahad aad u qurux badan oo hadiyadaha quruxda badan baa meesha dhigaysaa dadka u soo jiidatid. يعني way ku cusub tahay anagu yani xagga hadiyadaha iyo waxa ageen, laakiin munaasabadahana way yar yihiin. anagu xagga Soomaalideena munaasabaad waxaan leenahay qalin jabinta iyo magaranaysaa marka jaamacadda laga qalin jabiyo, iskuulaadka iyo waxaan leenahay munaasabaadkana way iska yar yihiin sida wadamada kale ma jirto. wadamada kale waxa maalin hebel waxa la waa ciid, bil ka bacdi ciid kale, bil ka bacdi munaasabad cusub. marka anagu waxaas kale ma haysano, laakiin برضو تهادوا تحاب. المهم مشروعه waxaad ka bilaabaysaa hadiyadaha. waxa jira hadiyadaad ka heli kartid wadanka gudihiis iyo kuwa dibadaha ka soo dirsanaysid. dibadaha sida Dubai iyo Oman oo kale waa ka soo dirsan kartaa, maraakiibta yarka lagu saarayo. taasna qiimaheeda waa yani aad isma bedesho, waxay ku xiran tahay jawdada soo gadanaysid. طبعا waxa soo gadanaysaa qalab hadiyadaha kuwa raqiisa iyo kuwa qaaliye, kuwa qasi qaalisan. hadiyadaha yaa laga gadi karaa طبعا جميع الأعمار، caruurta yaryarka ilaa iyo dadka waaweyn. ay nooc hadiyado waad keenaysaa, adigana kugu xiran tahay hadiyadaha. yani hadiyadaha waxaad keentaa keenin kuwa taqliidiya oo macruufa oo baxyo iyo waxa caaga iyo waxyaabahaas keenin. waxa keenta waxyaabo professional, waxa keenta waxyaabo cusub, laanu hadhowdi waxa imaanaya suuq munaafis. suuqa munaafiska waa maxay? waxa jira dad hamigoodu ah in dadka raaqibaan. yani lacag badan buu haystaa, bankiga u taala, ma fakarayo meelaha shaah ka cabaya, wuxuu sugaya hebel inuu mashruuc bilaabo. hebel muxuu sameeyay? hebel mashruuc buu bilaabay. bil ka bacdi uu fiirinaya mashruucii ka waran ma u socday. haddii la dhaho haa uu u socday, markaasuu mashruuca uu kala furanaya, sicirkana ama qiimaha hoos buu u dhigaya. ila mid lacag ku fadhiyo weeye. yani $300,000 hadduu haysto mashruuc ku bilaabo $5,000
wax qiimo uguma fadhiso $5,000 adigana waxaa tahay qof hadda yar oo soo baxayo kolba kolba tallaabo qaadaya tahay oo cusub hoos buu u dhigay sicirka hadhowdiina adigii waa lagaa guuriyaa ama waa lagaa tegay marka lidaalika waxaa lagaa baahan yahay tamayuz wax tamayuz la imaatid oo mar walba aad kaga horeysid qofka raba inuu kugu daydo tallaabo taasna waa mid weeye adiga kugu xiran tahay iyo saad u fakaraysid isoo mashruuckaaga aad u waxeynaysid okay waa ka hadalnay qalabeyntii meesha hadiyadaha halka laga keenay shaqaalaha dabcan wuxuu u baahan yahay labo mid meesha maamulka ah iyo mid meesha shaqaalaha ah qofka maamulka waa qofka deegadaya oo maartay alaabta keenaya waxa ama adiga noqo hadaad waqti lahayn qof kale meesha keen oo ka shaqeysii laba qof baa meesha ka shaqeysiinaysa faa'iido adag ku tahay iyo labadaas qofna waad ka shaqeysisay mujtamacana faa'iidana waa u tahay qofka kale muhiimadiisu waa maxay muhiimadiisu waxa weeye in hadiyadaha had iyo jeer boorka ka jafo oo nadiifiyo oo meesha qurux ka noqoto طيب qofka kalena wuxuu fiirinayaa wixii la gaday wixii soo galay iyo hadiyadaha adigana maxaa noqonaysaa adiga haddaad tihid qofka meesha raba inuu wax gado waa okay dhib male mashruuca saas waa ku soconaya طيب anagu waxaan rabnaa in arbaax bisraaca ay noo soo galaan arbaaxda ma jirto arbaax horta bisraaca qofka soo gasha ilaa hadduu maaragtay ilaahay u qoray waxaa lagaa rabaa sabr baa lagaa rabaa mashruucan markaad bilaabaysid in hadafkaagu ma ahan inuu noqdo bishii koowaad inaa intaas arbaax fara badan aan helo maya hadafkaagu inuu noqdo sumcad inaad yeelatid xagga magaalada dhexdeed gobolada sumcadda wax ka fiican male sumcad waa inaad yeelataa طيب shaqaalihii waan sheegnay aan u gudubno xagga suuqgeynta طبعا مبدئيا suuqgeynta waxaa sameynaysaa kaarar business card baa sameynaysaa oo ku qoraysa lambarkaaga iyo hadiyadaha iyo waxaa sameynaysid waxaa sameynaysaa page baad sameysanaysaa xagga youtube-ka xagga snapchat-ka instagram-ka facebook aad sameynaysaa oo يعني si professional ah ayaad maaragtay u gudbinaysaa oo dadka si ugu soo jiidatid oo ku yimaadaan meesha iyo xagga media-ha baad isticmaalaysaa xagga channelada Soomaaliga iyo taas aad isticmaalaysaa anigu waxaan garanaya facebooka bulshada Soomaaliyeed inta ugu badan facebook ay isticmaashaa intaas hadeer instagram-ka aad ugu badan yihiin dadka hadeer isticmaala laakiin waxa asaasiga waa facebook weeye facebooka laba qaab baa lagu cardaa iibinta iyo waxa suuq geynta qaab waxa jira oo balaasha oo waxaaga soo dhigisid oo dad mucaayimiin arkayaan qaab kale jira oo aad lacag bixinaysid xagga PayPal-ka ama Mastercard ama Visa card oo $10 bay ka bilaabmataa oo waxay ku dhahayaan $10 baa bixinaysaa intaas oo qof soo bay gaaraysa 5 cisho ay soconaysa xaysiinta ama dacayada lagu sameeyay xaysiinta maqaanayo adiga xor baa tahay ama inaad 10 bixisid ama kale hadaad lacag bixisid dad fara badan way gaaraysaa suuq geynta طيب مشروعيga xagga hadiyadaha ama dukaanka hadiyadaha seebaan uga dhigaa mashruuc naajixa waxa ilaalinaysa mowqickaaga oo mowqic boos fiican oo noqdaa taani shay waa inaad keentaa ama isku aadisa hadiyado aan taqliidi ahayn waxyaabo cusub oo dadka soo jeedanaya taani shay waa inaad ku dadaashaa xagga suuq geynta waayo hadeer waxa lagu kala horeeyaa waa suuq geynta ممكن aniga inaan haysto bidaacad fiican aan xagga suuqeynta ku dadaalin mumkin qof kale bidaacad aan fiicneen oo haysto laakiin suuqeynta ku dadaalo hadhowdii asaga iga sareeya leesh laanu suuqeyntu waa muhiim weeye suuqeyntu dadka baa ogaanaya inaad dukaan meesha ku leedahay dadka ogaanaya inaad waxa gadid dadka ma aragtay waxay jecel yihiin waxyaabaha cusub marka lidalik xagga suuqeynta waa ina lagu dadaalaa طبعا هو ما ده هي السوق يعني وح أن في عينين كانوا السوق جاين كسماء وهدوا دي واحد هي لسه لا لازم مصداقية الله بعني هاي لأنه أنا ما كان كارك وح سوشيال ميديا وان كبوت هذا الدكان كان لازم وحي أنكو أركيميش وأنا كهلا الدكان مو إن دي كنت وحياة ما عرفتي إنترنت ككلسه دكتور صور دكتور ضد صورين وما عرفتي عاد هذه يوسف هجاك هالكلام ما كميش أنا هذا وحياة كلا كهلا taasna masdaaqiya loo baahan yahay masdaaqiyadaada waa inaad ilaalisaa
channelkan haddii aad ku cusubtid aan weli aad subscribe saarin, subscribe saar, like-na inoo saar, lano like markaad saartid dad badan ba videoga u soo baxaya. teeda kale videohaadkeena iyo mashaariicdeena kale laabo haddaad danaynaysid mashaariicda. aad baan u mahadsantihiin, intaas ku gabagabeynaya. سبحانك ربي واستغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.